ma jirtaa su'aal aad jeclaan lahayd inaad aniga i weydiiso macnaa waxay doontaa ku saabsanaatay ha waan isweydiiyey mar walba waayahay waxaan isweydiiyaa in gabadh dhalinyara dhowaantii qurbaha horumar weyn samaysoo tallaabsatay maxaad halkeed ka keentay waxaana fariidnimaa waad mahadsan tahay maxamed aad iyo aad baan kugu soo dhaweynayaa Somali Motivation Podcast soo dhawow waan dhawaystahay aad iyo aad baan u dhawahay waan ku salaamayaa waan ku salaamay adiga inta dhageysanaysaa aad mahadsan tahay buugaagii doolaal ayaan akhriyay runtii aad baan uga helay markaan akhriyay kadibna waxaan jeclaystay inaan su'aalo kaa weydiiyaan baan kaa wareysto intaynan u gudagelin buugga iyo su'aalahan kaa weydiin doono insha Allah haddii aad dhegeystayaasheena isbarto gaar ahaan inta aan akhriyin buugga oo qof kasta buugga akhriyay si fiican buu ku bartay ama ku garanaya waa sax intaan buugga wali akhrisanin badda waa kuma ayaad odhan lahayd waayahay bismillaahi raxmaani raxiim mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiga iyo bahda dhegeysataba aad baan u salaamayaa mar labaad haddii aan isbaro waxaan ahay magacayga waa maxamed yuusuf bridh oo ku magac dheer maxamed badda waxaan ahay nin dhashay ku barbaarayna Hargeysa waxbarashadiisii hoose dhexe ilaa dugsiga sare ku qaatay Hargeysa waxbarashadii jaamacadna kasoo bilaabay xamar ilaa iyo la soo galay qurbaha oo ku dhamaystay waxbarashooyinkiisii sida u kala sareeyeenba ilaa maanta oo muddo laga joogay iminka 35 sanadoodna qurba jooga oo qurbaha degan aabba saddex caruura meeyaan caruurana saddex dad waaweynana aabba iyo wadaadii maxamed waa ka laakiin sidaad sheegtay qofkii akhriyay buugga uma baahna maxaad dambe baran maayo balse intaan buugga u helin nasiibka maxamed badda waa ka waan gartay buugga qofka akhriya ilaa caruurnimadaadii uu baranaya ilaa iyo wuxuu baranayaa wadanka markii aad ku kortay siduu ahaa runtii buugga waxyaabahan ka helay waxaa ka mid ah buugga jildigiisa marka la eegto waxaa la moodaya inaad ka hadlayso adiga noloshaadii shaqsiga ahayd laakiin si xariifnimo ku jirta ayuu buugga u qoran yahay oo maxamed oo kaliya noloshiisa kama hadlayo waxaad ka hadlaysaa waqtiga noloshu siday ahayd bulshadu siday ahayd wixii la xidhan jiray wixii la cuni jiray wixii la sameyn jiray madadaalooyinkii waqtigii adkaa mataqaanaa xorriyad la'aanta hay'ada lagu jiray dhaqaalihii heerka dadku ay taagnaayeen labiska dadka waxyaabo fara badan ayaad runtii ka daalacanaysaa buugga markaad akhrisanayso oo aad u xiiso gelinaya dadkii markaa yaryaraan aanba dhashay aanba aan xasuusan karin waxaan moodayay inaan filin daawanayo kale sida aad usoo tabinayso buugga waa run xaqiiqiyan waa sax waxaan horta kolley waxaan aad iyo aad u tabayey oon muddo dheerba tabayey runtii oon intan badaan ku bartay qurba ama iskuuladii ama waaaragnimadu noloshay bartay taariikhda muhiimka leedahay markan dib u noqotid aad asalka ku noqotid iyo meesha xaqiiqda ah qowlka ilaahay aad ku noqotid kitaabka quraanka ah ee aynu haysaneed noloshayno ah inaga maanta marka saddex meelood loo qaybiyo meel ba taariikhda ka hadasha waxay ka hadashaa wixii ummadii inaga horeeyay wixii loo soo dejiyay waxay soo mareen ilaahay baa inoogu baray oo inooga sheekeeyay sidaasay muhiim u leedahay taariikhdu qof kastana ugu leedahay marka runtii aan u tabayatii ayaa waxaan isiri balta runtii una soo taagnaa shakhsiyan aan cid kale ba eegin u soo taagnaa intii aan noolaa duruufo qalafsan oo fara badan u soo taagnaa oo ilaa maanta taan qurba joogga ku ahay ka mid ah ee aan tabiyadu u jirto ayaa waxaan is iri on doorbiday talow sideed dhalinyarta ubadka dhashay kuwan aan u dhalay iyo kuwa la daada jiilkooda sideed ugu gudbisaa bal taariikhdaasi dabeedna waxaan siri halkii Soomaalidu caadeen waxay sheegtaa waxa sameeyay taasaan siri ka bedel ka bacdina waxaan siri on xoog doorbiday inaan anigu isdhex maro anigu tusaale iska dhigo oo anigu muuska isku saaro afay fahmayaan dhalinyartu iyo bal hab aan anigu ila muuqatay in ay inaan maskaxdooda ku jiro oo aan anigu muuska isku saaro afay fahmayaan dhalinyartu iyo bal hab aan anigu ila muuqatay in ay inaan maskaxdooda ku jiro oo aan anigu muuska isku saaro afay fahmayaan dhalinyartu iyo bal hab aan anigu ila muuqatay in ay inaan maskaxdooda ku jiro oo aan anigu muuska isku saaro afay fahmayaan dhalinyartu iyo bal hab aan anigu ila muuqatay in ay inaan maskaxdooda ku jiro oo aan anigu muuska isku saaro afay fahmayaan dhalinyartu iyo bal hab aan anigu ila muuqatay in ay inaan maskaxdooda ku jiro oo aan anigu muuska isku saaro afay fahmayaan dhalinyartu iyo bal hab aan anigu ila muuqatay in ay inaan maskaxdooda ku jiro oo aan anigu muuska isku saaro afay fahmayaan dhalinyartu iyo bal hab aan anigu ila muuqatay in ay inaan maskaxdooda ku jiro oo aan anigu muuska isku saaro afay fahmayaan dhalinyartu iyo bal hab aan anigu ila muuqatay in ay inaan maskaxdooda ku jiro oo
noloshooda ku gaari karo ayaan u qoray buugga insha allah ayuu ahaa runtii waana ta keentay anigoo soo maraya shakhsiya nafteeda dhex maraya inaan haddana ku tusaaleeyo inaan sidii waxaad ku gudbisay buugga taariikh baad ku gudbisay runtiina ahayd nuxurkan u socday muhiimadda buugga u qorahayd inaan taariikh gudbiyo anuu muhiimadda taariikhda runtii aada u ogna inay taariikhdu tahay waxa qofka qiyam u sameeya qofka biniaadmiga waxa qof biniaadmiga ka dhiga waa taariikhda ummad haddii la rabay la baabi'iyo taariikhdeeda laga bilaabay la baabi'iyo qof haddaad rabtid istaahil inaad baabi'isid waxaad laga bilaaba taariikhdiisa oo de waa waxa xaqiiqiyan oo practically loo soo arkay adduunyada markii ninka madow la gumaysanayay meeshii laga soo galay taariikhdiisaa la baabiyey magaciisaa la baabiyey magacaa laga bedelay magaca kii aabihii baa laga bedelay kii awgii baa la bedelay sabab kale looma bedelin waxaa la jarayay dabarkii taariikhdana qoyskay ka bilaabantaa aabbaha iyo hooyada iyo ubadku siday isugu gudbiyaan bay taariikhdu ka bilaabantaa marka tan xoogga muhiimadda aad ka weyn saare waxay taa oo waxyaalahan arkay waxaa ka mid a laba carruuroo istaahil 6 jira ama 7 jira haddaad tiraahdo mid inanaab ka dhig midna ka dhig boqor simbali waxaad si fudud bay u baado taariikhda aabaha berigii labada carruur markay soo wareegaan mid gurigiisa tagaan bay hooyadii aabbaha iyo islaantii iyadoo haydii jaardi oran aabihiibu saaxiibka aabihiibu ariga u raaci jiray aabaha berigu laba awogii baa soo helay awogaa ilmaha yar marka dambe soo malaha waa runtii waxay sheegeen dadku waa run oo aabaha u lumi jiray awogaana u lumi jiray marka wuxuu ismoodayaa ilmihii yaraa kale wuxuu moodaya ilmahan kale ka wanaagsan yahay inuu aaminaa suurtagal ah waxaanay dadku sheegayaan marka taariikhdu almuhiim waxaan kala tusaale ma doonayeen carabka ku yaraadkeeye taariikhdu muhiim badan bay u leedahay qof walba marka nuxurka ugu weyn ee buugga iyo fariinta buuggaygu sita waxay taariikhda oo anuu saan sheegay waxaan ahaa dadkii jiilkii hana qaaday 80aadkii aniga jiilkayga iyo jiilashii kiiga horreeyay kuwiiga dambeeyay runtii rafaad fara badan bay la kulmeen xilligaasi waxaanan doonayay inaan u gudbiyo dhalinyarteena tuso in dhibkaan la kulannay uu ahaa maxsuul ka yimid 20 sano ka horreeyay wixii dhacay dabeedna qofka haddaan qofka ogeyn taariikhda wixii ka horreeyay dhacay maxsuulku marka dambe yani natiijada ama falka dhici doona ama maxaan ku dhaha reactionka dhici doona xilligaa uu qofkaasi noolyahay maaha wax maalintaa bilaabmay waa wax hore usoo bilaabmay haddaan taariikhdeedii haynada waa laga yaaba qofku wuu ku khalkhalaya un markaasi waxaa marka runtii waan ku dheeray jawaabta waan ku dheeraday malaha waxaan uga socday muhiimadan u qoray iyo nuxurka buugga lahaa een ugu talagalay inaan sidaa u dhigo wax walba koobaya waxay doonayay inaan sawirka halkaa ka soo galo maya su-aal muhiim ayaad ka jawaabtay taariikhduna jiritaanka qofka muhiim bay u tahay qofku meeshuu ka yimi haddaanu garanayn meesha u socdana wax badan kama oga buugga haddii aad soo koobto wuxuu ka kooban yahay jabtaro aada u fara badan oo aad kala qayqaybisay oo ka bilaabmay ilaa caruurnimadaadii ilaa waqti xaadirkan haddii aad soo koobto oo aad ka siiso sawir qofka raba inuu iibsado buugga oo uu akhriyo maxaad odhan lahay jabtarada sida soo koobi lahayd mawduucyadii ka hadlayaan runtii waxaan usoo koobi lahaa sidaan sheegay weeyaane waxaan doonay buugga inaan buug wuxuu muujinayaa un korniinkaygii noloshii aan ku koray iyadoo uu tixraac badan ugu sameeyey runtii halkii ay nolosha aan ku koray macaan iyo qaraar waxay lahaydba wixii kalifay meeshu ka yimid iyo qaxootinimadii iyo dhibkay keentay wada la-aantu iyo qaxootinimadii marka ay keentay oo ilaa maanta wax kale oo runtii buuggu guud ahaan jabtaradiisu jabtaro badan oo aan magac u sameeyey jabtarada titlaa jira ciwaano u sameeyey laakiin ciwaanadaasi waxay ku salaysan yihiin xaaladii aan ku noolaa ilaa intii aan hana qaadayay iyo xaaladii aan ku noolaa inta mudakarka noqdoon labada xaaladoodba ay raayeen laba xaaladood runtii kadeeda oo midna ahayd tii lala kulmay cadaadiskii iyo maxaan ku dhahdaa dhibkii lagala kulmay maxaan ku dhahdaa natiijadii qabyaaladda iyo cadaalad darrada iyo dad qof jeclaysiga iyo eexda iyo qaraabo kiilka dhibkii aan kala kulannay natiijadiisii iyo aakhirkii tay nabaday ahayd qurbaha mar da-daydii iyo jiilashaydii iyo kuwii aan wada kornay
marka jabtaradu saasay u kooban yihiin oo yaraantaydii maalinta barbaaridii xanaqaadkii mulcaamadii dugsigii sare kii dhexe dhagax tuurkii waxaan ku cadaadiskii jaamacadihii faraha badnaa iyo halgankii aan nolosha soo maray ilaa iyo intii aan maanta nin weyn ka noqday oo intaasuu u kooban yahay runtii waxyaalaha buugga uu kaga duwaya buugaagta kale buugga tusmo maan samayn tusmo ama tusmadii buugga ee laga eegi jiray waayo waa buug waxaan sir buug sheeko dareersan weeyaan oo bilow ilaa iyo maanta halkan joogo waxaan sir qofku yaanu joojinba ha wada uun istaale buugga su-aasha waxaa jirta fariin aad iyo aad iyo aada u muhiima oo soo gudbisay oo marka tusaale ahaan buugga tusmo ma laha laakiin wuxuu leeyahay hordhac aada u qurux badan buugga markii aan akhriyay waxaa jirta qoraalan ka sameeyey waxyaabaha aan ka helayo kooban baanan ku qoray waxaa ka mid ahaa hordhaca markaad akhrido buugga oo dhan waxaad helaysaa nuxurkii buugga aad uga dan lahayd nuxurkaasoo ah casharadii aad ka baratay noloshaada cashar muhiim ah oo ah boodboodka amba qofku inaanu jaamacadaha iyo waxbarashada bedelin qofka qurbaha yimaada ayaa taasi aad iyo aad iyo aad u taabanaysaa taasi waxay kutusaa markaad nolol cusub timaado waxaa isku dayeysaa mar inaad barato wixii lacag sameynayay marna barato wixii aad jeclayd marna aad barato waxaa wadankaa ka shaqaynaya niyad jab bay ku keentaa in qofku isiraado waad feelgarowda noloshii waad ku guuldaraysato wadigan kolba meel ku boodaya waqti badanna ka lumo ama lacag badan aanu samaynin xagga waxbarashada markuu u jeesto adiguna jaamacado ay dadku hiigsadaan oo caafimaadka iyo maxaan ku dhahdaa sayniska baddaba waad dhigatay oo buuggay ka mid yihiin bal ka waran fariintaa iyada markaad gudbinayso maxaad ka odhan lahayd dadka ama dhalinyarada dadkao dhanba maha dhalinyarada xaaladda ku sugan runtii waa mid dhaba ah oo jirta oo xaqiiq ah oo horta may sideedaba istaahilay bini aadmigu qofkii intaan ognahay dee aan ku baranay adduunyada ama dee xaqiiqa qofkii u fiirsadaana uu arkaya indhaha furan leh bini aadmigu markuu dhasho bini aadmigu waa noole ka mida noolaha ilaahay abuuray wiil la mida noolo badan baa oo ayaa jira oo markay dhashaan ay hooyadood foolatay ay dhashaan markiiba dhaqaaqa oo hana qaado oo suuqa gala sida xoolo badan baa jira noolo badan baa caynkaas noolaha badankiisu saas u badan yahayba bini aadmigu se bal waxaad og tahay ilmaha ilaa 4 jir يعني سيدا وكفا وسو غرغورتا وكفا علمي way beenoo ilaahay baa ku jira oo runtii in la baro noloshan soo socota ilmuhu in uu ku fidoono inuu markuu ku fayno ku cid barto hadii kale sida geela markuu dhasho nirgu carra hadhow talo markuu ku foo la qashaa soo moogid istayle oo dib uma kacada u jaba laakiin bini aadmigu waa training ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu talagalay in aad ku fidoontidoodka aad baratidsa loo kaco iyadoo taasi jirto mid tahay ayaa haddana markay duruufi timaaday dhab tahay oo inagana aad noogu bantahay anigana fariimahayga ugu wanaagsan ugu weyn baan u jeeda wanaagsan ma ugu weyn ka mid ahaa buugga anigana igu soo dhacay wax badan oo soo arkay adiguna iyo qaar badan oo kale oo saad sheegaysana ay arkeen macalku ma qurbo kaliya aanu istaayay macalku wadankeeni jooga ay bedelaada iyo boodboodkaasi aad u farbadan yahay uu jiro waxaan doonayay inaan tusaaleeyo soo duruuf kasta ha jirto waa dhab laakiin haddana adkaysigu inuu yahay shay ka mid ah waxyaalaha ugu fiican ee qofka garab geli kara waa dhab oo waxa anigu haddaan nin yar dib ugu noqdaan shakhsiyan tusaale ahaan tayada oon balde cid kaleba aan oontiin ويصاد شيء مدرسين بدلوا شعادي يقول مدرسين بدل إنجنيرك مارين كبدل إنجنير كلال كبدل ولا أفرشان شام عضوضه وين وكل يكسلان كله يمين بدل يشرين أو دساقد نما يجا كعيشة تام سبجت بيوات كذا من جرا واحد أهارته ده وجوه أحسن ولي ما قررنا يمتحنا أنت قلايان دعاء وسريق هذا وهاي إسكت عدي واحد هذا ما كتير شري مركان كتجو waan isweydiiyey boqol jeer baan isweydiiyey waniga waxaan kaga sheekay buugga oo waxaan tagay Helsinki baan shir ka qayb galay la ururinaya aqoonyahanka reer Soomaaliland ee qurbaha jooga waa 1999 jaacadii horeysay waxaan galay 5 waa 15 sano ka hor baan dhigay intaa wax baan dhiganayay jaacadaan dhiganayay
haddana markii la yidhi waxaa laygu yidhi waa xis qori qofka subtitle-ku sito waxaa laygu yidhi war maxamed maxaa tahay maasaan ku yidhi bal dayada waxaad ka eegtaa nus dhakhtarnimo keeg nus keeg masaligoor nus maxayd maasa nus engineer keeg nus nus ka keeg yani waa qos waa laygu waxaan uga socday 15 sano intaas jaacad baan soo galay haddana maan haysan title waxa laaliya waxaan idhaha waxaasaan hay maan haysan marka waxaan buugga aada ugu qoray in ay tahay muhiim inuu ardaygu maalinta jaacadda galo uu mudakarka noqday intuu miiska fadhiisto uu isweydiiyey maxaad doonaysaa noqotid bal keligii isagii allihii intuu fadhiisto ilmaha qof kastoo maanta dhegaysanayana aan ku boorinaya intuu meel fadhiisto inuu isweydiiyo qalin soo qaato maxaad doonaysaa maxaad rabtaa dabeedna duruuf baa iman doonta waa dab duruuftii maxaad ku waajahaas waxaasoo dhan talagalkeeda qofku samaysto markuu ogyahay inuu samayn karaa runtii anu xaaladan ku koray way ka duwaneed xaaladda maanta joogta oo de hawlo fara badan baa jiray kuwii aan medicine wada dhigan jiray mid maysta kuma jirin qaar la xidhay qaar la dilay qaar kulli markay barigii Somaliland markay dib u heshay ayay maxaan ku dhahaa waxbarashadoodii dhammaystirteen kuwii ila joogay Talyaaniga waa la musaafiriyay qaar badan oo may dhamays duruufo badan way jireen laakiin haddana si kastoo tahay waxa lama huraan adkaysigu waana waxyaalahan ku bartay noloshii bartay adkaysigu inuu qayb weyn ka yahay istaahiray qofka bini'aadmiga horumarkiisa duruufuhuna ay joogaan hadiya habeen maantana joogaan beritoolana joogi doonaan saadamana joogi doonaan laakiin si qofkii talagalkeeda si ogaaleeyay uu ka bixi karo dabeedna boodboodku runtii saad ku aragtay macallin baaba tahay dabcan adimka saad ku aragtay European-ka iyo ummadahan kale oo waxay sameeyeen ardayga uu sameeyeen markuu secondary soo gaaray inay u sameeyaan qof counselor la taliye ah oo weydiiyo u sheega waxbarashadiisa waxaasad ku wanaagsantahay waxaas bal waxaad ka fikirtaan waxay noqotid waxaasad ardayga weydiiye maxaad doonaysaa maxaad ku dhiirigeliyo ku caawiyo inay su'aashan aan sheegayay aan ku boorinayo dhalinyarteen maxaad doonaysaa inay u fududeeyaan inuu qofku keligii bal dib isku noqdo si aanay hadhow toole aanu beerka jecel ugu dhex dhibanin waan gartay laba su'aalood baan isku kaa raacinayaa waalidka Soomaalida ah amba waalidka Soomaaliyeed ee ilmihiisa maadaama jaamacadu lacag yihiin oo kale oranaya waxaas rabaa inaad barato ilmihiina maadaama jaamacadii laga bixinayo cidii ka bixinaysay waxay doonaysay saameyn fara badan bay ku leedahay amba waalidka haata amba qof kale oo qaraabada kamid ah oo soo caawinaya ha noqdo ka maxaad kula talin lahayd su'aasha kale aan ku raacinaya waxa weeyaan maaha kaliya qofku intuu kolba jaamacadda galo uu nus kaga baxo waxa dhacday in gudaha iyo dibaddaba dhalinyaradeena ku sugan waxa dhacday inuu qofku urursado shahaadooyinka oo waxbarasho uu wado iyadoo mararka qaar aan u baahnayn maxaad oran lahayd aqoonta in halkee lagu joojiyay ayaa macnaha mararka qaar u baahanta soo qofku waxtar ugu sameeyo wuxuu bartay wala horta intan anigu de waa aragnimadu tustay ama aan bartay ka bartay wuxuu meelaha duruufo barani waxaan buu ku bartay iskuul ka bartayba sideedaba waxbarashada la sheegay jaamacadda iyo waxaan sheegnay waxbarashadu sideedaba wax kale ma aha waxbarashadu kaliya waxa weeye waa urursi formation urursi wuxuu qofku urursaday waa aragnimo waa urursi aad urursanaysid yani qofka PhD-ga qaatay oo kale tusaale waa qof la mid ah qof la soo sheegaystay intaas oo nin oo way araga oo mid walba la sheekaysanay week waxa laga yaabaa kooraska caadiyan 4 week baynu qaadanaa ama qaar ba haday la say hal kooras 4 week qofku qaadanayo 4 week waxa la sheekaysanaysaa niman way arago waxa takhasus ku ah marka la sheekaysanaysaa book يعني بوق ملا سوالد وما عرفتين قف بوق وقف بنيادمية وقف بنيادمية ولا شيء سنة سيد وضحويدين السيد الله ده وهالك كبر واحد سيد تري نيوتن ومحد وجهه مركز الهيد جرافتي وحنا شيء قف كي وكوش راح يكون له وحي وقف بنيادمية بوق مركز هو وحبرشة السيد هو ورسي ويعرقني مفر بدل ديرت هاي قف كي كلام ويعرقني مدال هاي أوكي maxay ku bartaa marka ay keentaa waxbarashada jaacadnimadu waxay qofka siisaa bini'aadmiga inuu critical thinking inuu qofku xisbiidiyo jira waxaan niyo maxay sidan inuu qofku wax soo saari uu fakiri karo ka duwanaado qofkii kale laymaanka marka way wanaagsan tahay laakiin wax xaqiiq ah
inaad ujeedda maxaad dan ka waxaan aad urursanaysid maxaad u urursanaysaa informationka ma waxaa tahay ma buug sitaad waa halkii odaygii buug sitay qofku inuu noqdo maaha inaad urursidood qortidood maaha waa inaad ku faa'iidaysidoo ardayda jaacadda Harvard ee Mareykanka ku taalo kala tusaalaan oo jaacadda adduunka ugu wanaagsan gala ayaa waxaa jiray arday yidhi fikir baa layga xaday buu la tegay maamulkii jaacadda nin dhalinyaro saaxiib waxay iga xaday fikradan waday dabeedna nin waxay ku yidhaahdeen war jaacaddani waxaad u samaysan oo arday kaga duwan oo magaca ku yeelanay arday kasoo baxo waxaa laga sugaya inuu fikir abuur mid kale waa iga xaday waxaan iska daayo fikir abuur waa in ardaygu fikir keeni karo oo ummadda wax ka bedeli karo ardaygu markuu jaacadda kasoo baxo ma aha inuu waxaan ka yaaboon waxyaalahan arkay buuggaygan aan ku qoray runtii marka qaarkood aan xasuustanaa waan qoslaa aad baan ugu qoslaa buuggii qoslisa waxaa jirtay anoo xafiis secretariat leh xafiiskii secretariat leh yani xafiis prestigeful oo kuraas leather iyo taalan ka tagay Suudan ingiriiskan guuray marka guuray maanta kale ingiriiska tagay biro kale waxaan u shaqo tagay meel madbacada waxyaalaha iga qosliya aad uga qosla waxaan marka madbacada ku sii socday 5 subaxna waa lagu yiri ku kala buugga ku taala ma doonay ka carjashay laakiin waa iga qoslistaa ilaa hadda marka xasuusto markan ku sii socday nin baa Soomaaliya sag fadhiisanay baskiina lagu qaaday meesha madbacada lagu waxa maalis intii aanu sii soconay ilaa 30 mirir bas ka socday magaalada aan maanta imid baan ayaan bari ka shaqo tagay marka magaaladii aan arag xataa maan daawan ninkii baan su'aal weydiinay ilaa intii warshadii laga tagay waa warshadii waxaan shaqadii aan bilownay 5tii barkii 6tii galabna 4tii barkii 5tii ka soo raacnay ninkii baan soo fadhiistay marka intii aan sii soconay ninka chance maansi ninku koob shaagu ka bakri waay su'aalaan ku weydiinay kan waxaan ka waran warshada ka maxaa la qabtaa kan maxaa boqol su'aalood baa weydiinay ma chance maansi markii damar soo raacnay ninkii soo fadhiisanay waxaan xasuustaa ilaahay iga qosliya salaamu calaykum ma kari waayeen ku dhahdo yani daalan soo daalay ku soo rafaaday warshadii shalayna xafiis secretary aan haystay dabeedna waxaan uga socdaa waxaan doonayaa ku tilmaamo marka ka tagay ismaan jiibin ma oran shalay tool halkan aday waxaan yani buugana waxyaalahan ugu qoray ay ka mid tahay dhiirigelinta ka mid ah inaan qofku isoran wadii shalaad hays dhiibin ama jaacad baad ka soo baxday waxaan sameeyay inuu noloshu samayn karo oo dib u bilaabi karo meel ka gaari karo adkaysi kalsooni uu samayn karo oo hadaf kala samayn karo waxyaalahan arkay buugana aad ugu yeel waxa kamid ah dhalinyaro badan oo jaacada ka baxdo bilaa camal ka buuxdo wadkeena ayaa Hargeysa ka buuxdo aanu reer Hargeysa waxa ka buuxdo dhalinyaro ciida laga jaacada ka baxdo bilaa camal waxa kale oo ka buuxa malaay boqolaal kun istaahilay oo dad bini aadmi oo caafimaad qabo iyaga la mid oo shaqeysta oo mushaar qaata 400 300 500 dollar qaato kuwan bilaa camalka walaadkooda ay siiyaan ayaa ka buuxa Hargeysa marka waxa isma qabanayso kumanaan kun qof baa ka shaqeeya Hargeysa iyo kumanaan kun oo dhalinyaro reer Hargeysa ku shaqala isma waa kaafiye kala dheeri waxa si xaqiiq ah Hargeysa waxa ku yar shaqada xafiisyada way ku yar tahay aad waa wax la tirin karo qof kasta oo Hargeysa jacal ka soo baxay wuxuu rabaa xafiis fadhiisto marka marka xageeysa keenaysa buugga waxaan ku tisaaliyo ku qoraan waa xafiis xoghayn baan lahaa gaara ayaan xamaalis ka bilaabay oo haddana noloshii soo bilaabay anoo sababay u kalifeen ama door biday inaan u bedelo shaqada iyo wadakaba marka waxaan uga socdaa qofku waxa ay bartay aqoonta ay bartay inaan dib u bilaabi karo runtii waxay bartay waayarinimada waatan ka doonay dhalinyarteena inta fariimaha gudbinayo qofku bini aadmiga markuu jaacad ka baxo wuxuu bartay waxa la yiraahdo critical thinking inuu fakiro oo ka baxo marxaladda xilliga jirta oo bedeli karo meesha uu joogo naftiisa iyo beedaba marka dhalinyarteena su'aasha weydiisay dib ugu soo noqon xurkeedu waxay walaal محما رسالة إنه قفكوا عبرته ويعني أنت عن شغيني إلا ما أنت شغب بلاوي إلا ما أنت قربا إلا ما أنت وحنا إنه كان عير قاعد ولي ما شغبين ولي إلا ما أنتم لو أفريقيا تشتري وحبان نكتها ما تشتري السنة دانا وحدي كان قفكوا عبور رسالة كلا وحبر الشذا لكن هذا نوع نولشي سي ماله طيو أو كم ما يلاقي نولشي سي وأنا أوران
waxaan sitaa PhD waxaasun baa doonaya kolley uu ku shaqo beelaya qofka caynkaasi ya marka taasa xaqiiqoon ogahay inay dhab tahay waayo isagoo dhakhtar hadduu dhakhtarnimada waayo dee nurse buu kusii shaqayn karaa intuu helaya dhakhtarnimadiisa haddaan isla weynayn aan isla weynaan ku waa buug sita markaas xaqiiq waxa weye qofkaasi ma aha aqoon-yahan waa buug sita aqoon-yahanku waa qofka wax farsameeya ee wax create gareeya kaasa aqoon-yahan la yidhahdo cidna ma create gareyso qofka wax modify gareeyaan ujeeda ilaahunbaa wax abuuri kara laakiin qofka wax bedeli kara dee meesha waxa uu bartay wax ka samayn karaa hore uga socon karaa qofka hadduu meeshiisun taagan yahay waxaan arkay inaan xashiishka sheekada ugu dambaysa buu ku qoray inaan jaamiciyo xashiish ka shaqeeya oo maalin walba shaxaadaan maalin walbana wuxuu yidhi iyadoo shaqada lala baryo soo ruuxa maalin walba marka way fiican tahay in wax la barto laakiin waa inay waxbarashada wax ku darto qofka waxbarashada hadday ay ka dhigto shaqo la-aan unemployment hadday waxbarashadii kaa dhigto waa tacab khasaare buugga su-aalihiisa intaasaan kaga baxaynaa kamana cashaynaya dadka raba inay akhriyaan marka su-aalaha buugga kaa weydiin laha intaasaan kaga baxaya hase yeeshee dadkii dhegeysanaya maadaama buugga akhriya waxaan ku odhan lahaa tusaale ahaan qofka doonaya inuu qoro buug biography ama taariikh qof ama naftiisa amba qof kale inuu buuggaaga akhriyo waayo waxaan isleeyahay waa buug si qurux badan oo xiise leh u qoran oo markaad bilowdo aadin runtii si dhib yar u akhriyi karayso oo qaabka u qoran yahayna ay ka duwan tahay buugaagtii hore la qori jiray buugaagtii soomaaliga ah inta badan aan akhriyayna waa kuwo ka sheekeynaya amba sheeko jacayl amba sheeko muclaa wa-ala laakiin ay ku yar tahay biographiga ama taariikhda qof laga qoray haddii ayn intaa kaga gudbo waxaan ku weydiinaya 2-3 su-aaloodoo gaara waa sax waa maxay casharka ugu muhiimsan ee aad noloshaada baratay ayaad is leedahay waa dhab waa su-aal aada u wanaagsan wallaahi waxaan casharada ugu wanaagsan ee islaado waad ku baratay nolosha waxaa kamid ah adkeysiga iyo inaanu qofku niyad jabin aad iyo aad waxaan u bartay inaan duruufuhuna horta kulle xilliyadu waxaan ujeedaa jiilasha jira way kala duruufo duwan yihiin laakiin waxaan aan u tirsadaa aniga jiilashayda inaan duruufaha iska qalafsan aan ku kornay waxaan se ku bartay oo nolosha aad ugu bartay adkeysiga iyo inaanu niyad jabin aan adkeysto oo aan maxaan ku dhaha hore unu socdo hore ayaa ka bartay waan odhan karaa nolosha waa tala aad iyo aada u wanaagsan su-aasha labaadan ku weydiinaya waxa weeyaan maxamed badda oo 20 jir ah oo maanta ku hortaagan maxaad jeclaan lahayd inuu ogaado amba maxaad kula talin lahayd hal taloo keliyaata waxaan ku oran lahaa kitaabka qur-aanka waxyaalahan aada isugu qoomayo runtii waan bartay oo waan usoo noqon doonaa jawaabto gaabanina laakiin yaraan ka horeysiiye waxyaalahan is idhaahdo inaad xoogga saartayd maalinta 20 jirkeed waxayd inaan aada u barto qur-aanka kariimka iyo xadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam waan bartay oo waxaad buugga way ku qoran tahay runtii waan ku barbaaray oo wax badan baan soo bartay tafsiirka qur-aanka iyo wax badan baan bartay laakiin waan ka badin lahaa intaana ka badiyo haddii maanta hor joogi lahaan heli lahayn waxaan ku hori lahaa waxaad waxaad saartaa qur-aanka kariimka inaad baratid waayo waxaan ku bartay intan noloshii bartay mudakarnimadu way bartay cilmi oo dhan kitaabka qur-aanka ku yahay marka waxaan aada iyo aad u odhan lahaa su-aasha ay gaaban haddaan ku noqdo haddaan maanta maxaad badoo yar arki lahaa waxaan lahaa waa kaa cilmigaa qaado buugga hadda waad qortay waa la daabacay suuqu galay waa la iibiyey waa la iibsaday marka uu kugu soo noqday feedbacka buuggu amba warcelintii dadka akhristay amba adiguba adub u akhriday maxaad ka bedeli lahayd horta haddaan ku horeeyo feedbacka walow dadkeenu ay u badan yihiin ixtiraam u badan yihiin oo ayna balaayo sheeghayn inta badan runtii mar walba xataa iyagoo qalad halkay ay jecel yihiin inay wanaag xagga wanaag wax wanaagsan laakiin haddana wuu yar yahay runtii
waxaan jeclaan lahaa feedback in lagu soo celiyo feedback igu soo noqday weliba wada positive weli dadku wax badan oo positive ay igu soo noqday aad fara badan bal dhinkii negative-ka iyo maxaan ku rahdaa naagdel maxay xagga qeybta yaraa in way igu yartahay runtii aad meelo aniguna marka dib u akhriyay way jiraan waan arkay meelo